halkan hadda waxaa ku jeediin 3 tikid أنا 3 qof aan ahay 3 tikid geesa laga jeexaa marka soo qaadaysid marka soo qaaday xafladda hoolka meesha uu ku yaala ma ogi inaa raadino waay saafilaya hadda meeshaas inay ka dheerto amina insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال دمانتين وسلامتين ملك استدنك كجوكتين كسو دواده مقال عصب فضلا هدي اكو عصبتها جنالك او معيدة جنال سبسكرايب لايك شير كومنت وعدنك كسو دو مقال عصب halkan waa hoolka beerta nabadda waxaa lagu soo bandhigaa buug magaciisa uu yahay garaadso inta aadan guursan waxaana qoray buugaas ustaad mubaarak hadi kulanka muqdisho ayuu ahaa bandhiga buugan waxaa lagu soo bandhigay hoolkaas waxaa kasoo qayb galay dad aad u fara badan maasha Allah haween rag mas'uuliyiin sidoo kale waxaa kasoo qayb galay barnaamijka oo taabagelinayay shirkado ay kamid tahay Dabshiil IBS Bank iyo shirkado kale oo badan ayaa meesha ka hadlay teeda kale dad kale oo mas'uuliyiin meesha way ka hadleen kulli waxaad ku arki doontaan muuqaalkan ila socda subscribe saar haduu muuqaalkan idin soo gaaro like share comment channelka horumarkiisa ay wax u tarayaan intaas aad u maasantiin ila socda إني كنت تجلس مرة أستاذ قوس عارفين أستاذ بوتان هذا ما سنين ما كان حاب علينا الاسم ويسام شو كان شركة بنك IBS بنك وبرنامج شهادات قاطعين وهرجرو ما راح برنامج بكار أنا رجعوا عبد الرحمن محمد عبد النور دي مخلص عبد الرحمن ملوي وصلنا قلنا مدام وقت قريب جاي waxaan rabaa si aan xagga gabayga qabsan inaan balance ka dhigno khudbadii waxaan yeelayaa Dr. Star Maxamed Cabdi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وغير الله وهرجسنا في العقد فصيح بين قوعي مركر إله سبحانه وتعالى ما هذا السكنة ثانيا معلم كان يدير قليه هنا أستاذ مبارك هادي وأبوك يسيره مدرسة عليه كدار لها سفر بنصر عليه أيامنا العليا ثانيا إذنك صح حاضري dhalinyarada Soomaaliyeed dhalinyarada reer Muqdisho aad iyo aad idinka mahadsantihiin kulli waqtiga aad u gaaban yahay kalmadeeda way soo koobnaan doontaa inkastoo haddii buugga ka hadal buugga maadaama aan soo aqriyay oo ilaa wax ka dhaho aan rabo aan si jeclaan lahaa maanta inaan ka hadlo laakiin waqtiga aad u gaaban yahay waxaan rabaa buuggan aniga inta horaan kasoo aqriyay maalinka hore uu soo gaaray intii aan ficaysaa inta ka noo socdaa hagaha guurdoonka iyo wehelka lamaanaha xaqiiqatan buuggan markaa aqrinaysid saddex waxyaabood buu arki doontaa in buuggan uu ka dhashay wax akhris iyo waxbaari tiro badan uu ka dhashay waa ka fahmi doontaa marka aqrinaysid gudihiisa markaa aqrinaysid oo hadal la iska qoro uusan ahayn ama buugaan la qoraayo u qorin aan loo qorin laakiin natiijo ka dhalatay baaritaan iyo akhris tiro badan inuu yahay ثانيا buugga marka lagu gudbo muxtawaha ku jira af Soomaaliya waa lagu bartaa xaqiiqatan erayo badan terminologies badan oo af Soomaali ah oo hormar ya uma dadka Ingiriiska iyo Carabiga wax ku aqriyo waxa dib ku qabnay eray Soomaaliya erayo badan oo markaas jirta af Soomaali ma lahan ayaa waxa baari doontaa in af Soomaaliya loo sameeyo magac bixin ah marka macallinka waxa uu baahan doonaa in ciyaar xamar aan ahay in xoolaha
waxaan soo saaraynaa buug la yidhaahdo guurso intaanan garaadsan oo bilcagsi ah u aqrinaynaa camal ah sababta waxaa waxay leeyihiin haddaa garaadsatid guursanba maysid waa ictiqaad aad iyo aad u khaldan oo dhalinyarada maskaxdooda ku jira qofka hadduu garaadsado inuusan guursanin dhalinyaro maahe dad waaweyn oo waayeel oo qaba arkaysa oo kule qofkan caqli buu leeyahay guursan maayo garaad buu leeyahay guursan laakiin si saxdaa waxay ahayd in caqli iyo fikirka iyo garaadka iyo saqaafada guurka inaan soo barano intaanan guursanin ka hor meelaha aad iga cajabisay waxaa ka mida markuu ka hadlayo khaladaadka laga fahmay guurka oo masala maamaayaa qaar hooyooyinka markay rabaa inay gabadhii kiciyaan ama wiilkii waxaa leeyahay guurka waa god madow oo gacanta ay gelinaysa wax qaladana waa xaqiiqatan oo waxay ka dhigayaan wax dhan oo aad wax ka ogeyn oo wax ka arkin oo wax ka maqlin oo ku nasiibsada waa 50-50 marna way ku ficnaan karaan marna way dhumaan karaan wax qalad oo la aaminsayaa waxaa jira waxyaalaha qaladka oo la aaminsan masalan bacdayn iyo taqayar wax rabo hadhow isbedelaya ku qaado xumaantay ku qaado sidaa ku qaado red flags ku qoro yani calaamado ay khatar tahay qofkii lagu qaado qofkii la ogaan asagoo ujeedu qofkii ku qaadanaya ayadana sax maaha waxyaabaha oo soo jiito maskaxdii hore kasoo qabto waxaa ka mid ah wuxuu noo sheegay buugga farqiga u dhexeeya aroos iyo guur ficil dad badan leeyahay waxaa leeyahay ma aroosi dadku waxay xiiseynayaan maalinka farxadaan tahniyada lagu soo qori hambalyaa lagu leeyahay waxarodaa lagu leeyahay maxaa ka dambeeya adiga lagu badboodaysa saa darteed guurka maxaa marka waa mas-uuliyad arooska laakiin waa xaflad maalinle ah waay waxyaabaha ay cajabiyo waxaa ka mid oo practical in aan arkin yacni dadka aan ku arkay waay marxaladaha guurka marxaladaha guurka shan marxaladood uu sheegayaa marxaladda hore ah marxaladda romansiyadda marxaladda maaragtay isxaqiijinta hardanka is-aqbalaada maraaxisha markuu tirinayo in badan oo ka mida oo dadkiina waa ku dhex jiraa bulshadii gabdhihii waa ku dhex jiraa in badan oo ka mida waxaa arkaysaa marxaladda herdinka oo qofka u isbedelay siduu ahaa saan ku guursaday ma ahan iyo saan ku ogaa ma aha iyo dhaqan cusub la yimid iyo in la isku furo marka buuggan waxaa kaloo waxyaabaha ku celcelinaya ka mid a dhaqanka iyo xilmiga iyo saqaafadda hadda aan ku dhex noolnahay way ka duwan tahay tii hore u jiri jirta aad iyo aad ay ugu duwan tahay dadku waxaa laga yaabaa weligan hooyooyinka markay ku maamaan weligan baa soo guursan jiray ilmadaa la soo korin jiray waxbaa la soo samayn jiray xaqiiqatan way ka duwan tahay waqtigii hore sida uu noo sheegay ustaadka gabadha in la furo way ka khajiri jirta ninku mas-uuliyad buu yaqaanay midda kale doorka reerku kale leeyahay waa la ogaa wiilku wuxuu qabanayo iyo gabadha waxay qabanayso waa la ogaa hadda wixii dhammaa isbedelay hooyooyinka hore way safri jireen iyadoo maanta dhan wax qisaska qaar oo cawada umuraysa iyadoo koob caana ay cabina cawada umuraysa way ku safraysa halaa waxay ka cabraysaa furiin iyo ilmihii inay meeshaa ku dayacmaan ilmaheeda daraaddeed u safraysa hadda waxaa aqaanaa xaalaad la isku furay $1 iyo $5 wax ka yar la isku furaya $1 isigii ku siin maayo joogi maayo la isku furaya macnaha waa isbedeshay waa lagu kala tegi soddon maxay silaac ku nool soddon guursada hadaanta wixii inta la isku dardara waxaa arkaysaa 20 jir 3 guur soo maray gabar 18 jir oo leedahay 2 cunug baa istaa lagu soo furay maaragtay 18 jir guryaha meelaha tahay oo dheersa maaragtay aniga maxaa gurigaa lagu soo dhigtoo lagu soo furay silaac ku nool soddon guursada hadaantay ku leedahay wixii dhammaan wax culaysa uma aragto waa sahlanay dee macalinka ayaa ku sheegay wiil 23 jira oo 8 guur soo maray ka war 23 jir 8 guur soo maray marka waxaasoo dhan waxay ka dhalatay markii la yidhaahdo war waxaan hala barto saqaafad waaye aqoon waaye markii la yidhaahdo dadku waxay u malaynayaa wax jeesjeesa wallaahi buugkaan markaa akhrisaan iska hadalada waxbuu ku siyaadinayaa aqoontaada waxbay ku siyaadinaysaa rasiidkaada aqooneeda siyaadaya ilmuhuna way kuu furmayaan sababta waxaa weeyaan luqadiisuna way kooban tahay oo war tiro badan maaha jabtaradiisa iyo yacni jusmadiisu way badan tahay warkiisuna ma tiro badno hadda inta wada garata gudoomiye-xigeenkii bangiga daabshiil cusmaan shaqan jaamac oo ka mid ah dadka aqoonta dheer u leh arrimaha qoyska
in badan casharada wada bixiyey marka anaga lafteeda kulley nagama marna marka waxaan dadka mar kale iyo mar saddexaad baan soo koobaya dhiirigelinayaa in buugga aynu iibsano waliba dadka iskaabulada iyo dadka labadaba macnaha waayo buugga sada aragtaanba waa hagaha guddoonka iyo weelka labaana marka labadii dhinacba insha allah tegi doontaan aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh hadda waxaa la gaaray xilli dambo ilaa iyo maqribka camal waa 12 iyo xoogaa marka salaad maqrib waa la aadi doonaa xafladina halkaas kusoo dhamaatay dadka dhan waa ay faraxsan yihiin maasha allah aadan maasantiin idinkana maadaama waqti gelisiin muuqaalkan aad daawateen like share comment waa dhankeen wax ma idinka dhibayso lacagna ma ahan aadan maasantiin